dhaqaale dhaqaale waa hadal kooban balse macnihiisu waa mid fidsan sida badweynta qoto dheer sida xasuusta una baahi badan sida neefta waa tamarta qaran la dareemo marka uu ruuxu shaqo helo marka cunug bilaash ku helo daawo ama hooyo aan waxbaran weligeed loo keeno fursad ganacsi uu yahay maskaxda muruqa iyo murtiyaha nolosha bulsho dhan waxa uu kor u qaadaa quruumo hoosna u ridaa boqortooyooyin haddaba daawadaha sharfana weli ma isweydiisay sida ay ku sameeyaan dowladuhu dhaqaalaha waxaa ka hortaagan in dowladuhu qaar sameeyaan dhaqaale muuqaalkeenin waxa aan kaga jawaabi doonaa ilaa 5 qodob oo dowladuhu dhaqaale ku sameeyaan iyo qodobo kale oo ka hortaagan dowladaha kale inay dhaqaale sameeyaan innaga oo ku dhisi doona tusaalooyin la taaban karo maxaa laga wadaa dowlad dhaqaale samaynaysa marka la yidhaahdo dowlad dhaqaale samaynaysa inta badan waxaa maskaxda laga fahmaa in dowladdu tahay mid lacag badan helaysa dakhligeeda kor u kacayo laakiin xaqiiqdu waxay tahay in dhaqaale samayn aanu ahayn mid ku salaysan lacag degdeg ah oo soo gasha balse uu yahay nidaam ay dowladdu ku abuurto fursado kalsooni kaabayaal iyo sharciyo hufan oo dhaqaale iska dhisaya dowlad dhaqaale samaynaysa waa mid si miisaan leh u qorshaysa kheyraadkeeda awooddeeda dadka iyo siyaasadeeda ganacsiga waa dowlad wax ku og sida loo kiciyo wax-soo-saarka gudaha loona maareeyo wax kala iibsiga dibadda loona kobciyo warshadaha iyo adeegyada dhaqaale ku sameeyaan waxaa jira siyaabo badan oo dowladuhu dhaqaale ku sameeyaan waxaana ka mid ah kow cashuuraha oo si hufan loo maamulo cashuuruhu waa lafdabarta dhaqaale dowladeed haddii ay dowladuhu leedahay nidaam cashuureed oo daahfuran cadaalad ku salaysan islamarkaana loo maareeyo si hufan waxay fursad u helaysaa inay horumariso adeegyada bulshada sida waxbarashada caafimaadka iyo amniga dowladaha Scandinavia sida Norway, Sweden iyo Denmark waxay tusaale u yihiin sida cashuuraha wanaagsan loogu bedelo nolol wanaagsan waxay dhaqaale xooggan ka dhiseen iyadoo ay dadku ka cashuur ka qaadaan balse si hufan ugu celiyaan adeegyo tayadoodu aad u sarreyso laba kheyraadka dabiiciga ah dalal badan oo kheyraadka hodan ku ah sida Qatar Sacuudi Arabiya iyo Norway waxay dhaqaalahooda sare ugu kacaan iyagoo si xigmad leh u maareeyay batroolka gaaska dabiiciga iyo macdanta farqiga ugu weyn ee u dhexeeya dal hodan ah oo sabool ah iyo dal hodan ah oo taajir ah waa nidaamka maamulka ee kheyraadkaasi Norway waxay batroolka u maamushaa daahfurnaan iyadoo oo dakhliga laga helo la geliyo sanduuq qarameed oo yaqaano Sovereign Wealth Fund halkaas oo loo maalgeliyo shiilasha soo socda saddex kaabayaasha dhaqaalaha waddan leh aan lahayn jidad dekeed garoon iyo isgaadhsiin casri ah suurtagal uma aha inuu dhaqaale dhiso shiinuhu wuxuu tan u arkay fursadda kobaca wuxuuna bilyan ugu bixiyay dhismaha waddooyinka tareenada degado iyo warshado dhaqaalihii ayaa ka baxay heerar hoose kuna dhacay meel sare afar kor u qaadista wax soo saarka gudaha warshadaha beeraha iyo adeegyada gudaha waxay fure u yihiin dhaqaalaha dhab ah dal sida Germany wuxuu dhaqaalihiisa ku dhisay wax soo saar sare gaar ahaana baabuurta qalabka warshadaha iyo tiknoolajiyadda markii dadku helaan shaqooyin ay wax soo saaraan suuqna loo helo dhaqaaluhu si dabiici ah uu kobcayaa shan dalxiis iyo adeegyada waddamada aan lahayn batroolka ama warshado waaweyn haddana dhaqaale sameeyey ayaa jira dalalka sida Thailand Kenya iyo Maldives waxay adeegyo iyo dalxiis ka dhigaan lafdhabarta dhaqaalahooda marka lagu daro adeegyada xawaaladaha bangiyada ganacsiyada internetka iyo tiknoolajiyadda waxaa muuqata in adeegyo keliya lagu taaban karo dhaqaalaha daldhan tusaalooyin muhiim ah oo caddaynaya dhaqaalaysiga dowladeed Kuuriyada Koonfureed dhaqaalaha tiknoolajiyadda Kuuriyada Koonfureed waxay ahayd dal burbursan kadib 1950-yadii laakiin waxay xoogga saartay horumarka cilmi baarista iyo xoojinta ganacsatada yaryar dowladda ayaa maalgelisay shirkado ay ka mid yihiin Samsung waxaa noqday kuwo dhaqaale badan ku keenay dalka Rwanda koritaanka dhashay maamul hufan Rwanda waxay ka soo baxday dagaal iyo xasuuq balse waxa ay maanta leedahay magaalooyinka ugu nadiifsan Afrika nidaam canshuureed oo shaqeynaya iyo ganacsiyo yaryar oo kobcaya dowladda ayaa xoojisay kalsoonida waxaana ka soo qulqulaya maalgashiyo shisheeye iyo dalxiisayaal caalami ah Jarmalka dhaqaale warshadeed oo tayo sare leh Jarmalku waxay dhaqaalaheeda ku dhistay warshado leh sumcad iyo tayo dalku wuxuu diiradda saaray aqoonta farsamada wuxuu fududeeyay nidaamka ganacsi wuxuuna kobciyey wax soo saarka gudaha dalkani ma ahayn mid kheyraad dabiici ah badan leh balse wuxuu ka dhigay dadka iyo kartidooda tii dhexdhexaadka dhaqaalaha waxaa ka hortaagan in dalal badan dhaqaale sameeyaan waxyaabo fara badan ayaa ka hortaagan dowladaha kale ee saboolka aan dhaqaale sameynin waxaana ka mid ah kow musuq maasuqa haddii lacagta dowladdu luunsato adeegyo lama heli karo kalsooni ma dhalan karto maalgashina lama soo jiidan karo laba xasilooni la'aan siyaasadeed meel aysan jirin xasilooni siyaasadeed suuragal ma aha in la sameeyo qorshe dhaqaale oo fog maalgashaduhu ma rabo in lacagtiisa geliyo meel qarka u saaran burbur saddex maamul xumo iyo qabyaalad
haddii maamulku ku dhisan yahay dan gaar ah ama qabiil, dadka kale waxay dareemayaan inaysan qayb ka ahayn horumarka, taasoo dhaawacda isku duubnaanta iyo wax soo saarka. 4. Aqoon la'aan iyo tiknoolajiyadda liidata. Waddan aan lahayn aqoon farsamo aan cilmi badan aad buu u adkaanayaa inuu la tartamo suuqyada caalamiga ah. Maxaan ka baran karnaa? Markaan si qoto dheer u eegno tusaalooyinkan, wax cad baa naga soo baxaya. Nidaam dhaqaale sameeya waa kuwo leh aragti dheer, nidaam sugan, sharci adkaan kara, maamul hufan, dad wax baran iyo fursado loo siman yahay.